Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Dhinaca kale warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan Shiinaha ayaa ka joojiyay toddobaadkan shirkadaha Yurub ku yaala macdanta iyo qaab kasta oo uu dhoofin jiray kuwaas oo loo adeegsan karo wax soo saarka rayidka iyo militariga labaduba iyadoo shirkadahan ay ku jiraan shirkadda Jarmalka ee Hensoldt iyo shirkadda Belgiumka ee FN Brown waxaana go'aankan sabab loogu dhigay xiriirka shirkadahan ay la leeyihiin ama iskaashiga hubka ay kula jiraan Taiwan xilli la sheegay inuu Shiinaha diyaarinayo go'doomin dhameystiran oo la saaro Taiwan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal in gudaha Mareykanka ay ka jirto ku aadan hoos u dhac ku yimid kaydka hubka Mareykanka kadib dagaalkii Iran taas oo ka dhalan karto in uu ka faa'iideysto Shiinaha uu weerar ku qaado jasiiradda Taiwan sabab la xiriirta Mareykanka inay ku adkaanayso waqti xaadirkan inuu ka difaaco Taiwan Shiinaha. haddii aad maqli jirtay madaxda Soomaaliyeed waxa ay ka faa'iidaan madaxtinimada markaas iyada ay joogaan laakiin Mareykankii ayaaba haatan waxa soo baxaya waxyaabo la yaab leh oo madaxdii ugu sareysay Mareykanka ayaa waxa lagu eedeynayaa ka faa'iideysiga dhaqaalaha ama awoodda markaas iyada ay haystaan. Senator Bernie Sanders oo ka tirsan golaha sanadka ee Mareykanka ayaa ku eedeeyay Trump in uu u bedelay Mareykanka meel isaga iyo qoyskiisa dhaqaale ka sameeyaan waxa uu sheegay tan iyo dib u doorashada Trump in ay heleen qoyskiisa $4 bilyan isagoo adeegsanaya awoodda madaxweynaha ayuu yiri wuxuu soo bandhigay faahfaahinta meelaha ay lacagtan ka sameeyaan Trump iyo qoyskiisa lacagaha digitalka ee loo yaqaan cryptocurrency $3.2 bilyan ayuu ka sameeyay ayuu leeyahay halkan heshiisyo ay ka heleen dalalka khaliijka ayaa waxa ay gaarayaan lacagta uu ka sameeyay qoyska Trump iyo asiga naftigiisa $425.8 milyan diyaarad gaar ah oo qiimaheedu uu gaarayo $150 milyan oo ay ka heleen ayuu leeyahay dawladda Qatar. Khasaaraha sharciyeed iibka alaabaha Trump iyo caruurtiisa ayaa ka faa'iideeyay leeyahay $127.7 bilyan. heshiisyada shirkadaha ay ka faa'iideen $91 milyan hotelka Honey Eye oo ay ka heleen $40 milyan barta gaarka ee Truth Social oo ay ka heleen ama faa'iido dhan ay ka heleen $25 milyan Don JR oo ay ka heleen $19.6 milyan waxa uuna ku soo gabagabay in nidaamka Trump uu yahay xukun ku dhisan musuqmaasuq.